kulan wacan daawadayaal meel walba aad caalamka ka joogtaan waa mar kale iyo barnaamijkeennii wararka isha sirdoonka oo maanta ku eegayno qaybtii 8aad ee kobcii islaamiyiinta Soomaaliya ku soo dhawaada barnaamijka. ururkii al-ahli al-islaam hogaamiyaheeda Cabdiqaadir Sheekh Maxamuud ayaa qorsheeyay in Ismaan Cabdulla Rooble uu ahaado mas'uulka sii haya xilkiisa haddii isagana la xiro inuu xilkaasi qabto Cabdiwaaxid Sheekh Xasan oo kamid ahaa xubnaha ugu da'da yaraa. kolkii kacaanku qabqabtay xubno dhowr ahaa oo kamid ahaa islaamiyiinta Soomaaliya ayaa labadaasi xubnood waxay kamid noqdeen dadkii la xiray, waxayna hawshii hogaaminta al-ahli islaam si ku meel gaar ah loogu dhiibay Xuseen Cali Xaaji. ururkii al-ahli al-islaam wakiilkii gudaha Soomaaliya Xuseen Cali Xaaji ayaa ahaa nin dhalinyaro ah oo mehrad yar ka furtay bacadlihii Xamarweyne. ma ahayn ganacsade kaliya ee waxa uu ahaa shaqsiga isku dubariday howlaha culus ee ururka al-ahli al-islaam waday. waxa uu bacadlihii kula kulmi jiray xubnaha muhiimka ah ee al-ahli al-islaam iyaga oo wixii degdeg ee soo kordhaa la socodsiin jiray. maynan awoodin sirdoonkii NSS-ta inay ka war helaan bacadlaha Xamarweyne halka laga hagayay in uu ahaa ururkii al-ahli al-islaam. sii socday halgankii al-ahli al-islaam ee dacwadda Xuseen Cali Xaaji hogaamiyihii ku meel gaarka ah waxa uu deganaa degmada Boondheer ee magaalada Muqdisho guri ku yaala oo uu kula kulmi jiray xubnaha lama dhaafaanka ahaa, waxaana uu si gaar ah u deganaa qol lahaa 3 irdood oo 2 kamid ah dibadbax ahaayeen ama dibadda u furaayeen, midna uu ku sii jeedo qolka kale ee gudaha. gurigaasi qof kasta ee albaabka uu ka galo ma ahan ee mid kale ayuu ka bixi jiray. aad ayaana xaaladiisa loo adkeeyay, si qarsoodi ayaa xaafadda loogu kulmi jiray, mana ogeynin diriskiisu hawsha uu guriga ka waday. Xuseen Cali Xaaji waxa uu ahaa hogaamiye firfircoon daacadna u ahaa ururkii al-ahli al-islaam si hufan isugu dubariday howlihii uu xil saaraa. waxa uu ahaa nin akhris badan aadna ula socday caalamka. waxa uu ku guuleystay in sirdoonkii NSS-ta aanu ka warhelin ololihii laba lixaadsaday ee ururka al-ahli al-islaam uu ka waday Soomaaliya, iyadoo dhalinyaradaasi sii laba jibaareen dadaaladoodii dhinac walba ku saabsanaa. al-ahli al-islaam ma ahayn dhaqdhaqaaq dacwo oo kaliya, waxa uu se ku howlanaa fulinta istiraatiijiyad qorsheysan oo ku saleysan in ay awoodda dalka gacanta ku dhigaan meeshana ka saaraan xukuumadda kacaanka. si taas loo helo waxaa la diyaariyay awooddii wax bedeli lahayd mid ciidan iyo mid siyaasadeedba. ururka al-ahli al-islaam hogaamiyaheeda guud waxay isku waafaqeen in ciidamada lagu daro dhalinyarada ugu firfircoon ee kamidka ah xarakaadkaasi al-ahli al-islaam. go'aankaasi ayaa ahaa mid lagu adkeeyay siduu ku fuli lahaa, waxaana lagu wargeliyay xubnihii loo xushay in ay ku biiraan ciidamada. xubnaha ka tirsan ururka al-ahli al-islaam ee lagu wargeliyay kamid noqoshada ciidamada si gaar ah ayaana loo sheegay in ay yareeyaan xiriirka ay la leeyihiin xubnaha kale ee ururka al-ahli al-islaam si aan looga shakin uusan u soo gelin raad la xiriira wadaadada la qabqabtay. meeshaasi waxaa kaaga dhalan kara in ururka al-ahli al-islaam ay u shaqeynayaan qaab sirdoon maadaama ay ku xiraayeen dowlado Carbeed oo ka soo horjeeday aragtida kacaanka Soomaaliya. Dr. Saadiq Eenow ayaa ka hadlay arrintaasi. waxa uu yiri 5 xubnood ayaa la isugu kaanya xiri jiray xubnahayagii ku biiray ciidamada Soomaaliya. waxaan dhammaantayadana lagu amray in aan yareyno xiriirka aan la lahayn xubnaha caadiga ah ee ururka al-ahli al-islaam. xubnahanagii aan isnaqiinay ee aanu saaxiibka ahayn xataa waa ka gaabsanay sidii hore ee aanu ahaan jirnay. wax badan ayaa iska bedelay. 5tayadii isku xirnayd ayaa meel waxna lagu bari jiray ayuu yiri Dr. Saadiq Eenow. Dr. Saadiq Eenow ayaa sharaxaya 5tii xubneed ee uu kamidka sidii ay kulmi jireen. 5tayadii xubnood toddobaadkii mar waxaan ku kulmi jirnay guri ku yaalay degmada Waaberi, kaas oo ku yaalay baar ha idhaafin dhabarkiisa dambe. waxaa gurigaasi deganaa Amiin oo kamid ahaa 5tayadii xubnood. waxaanu kala ahayn aniga, Cali Muuse, Amiin iyo 2 xubnood oo aanan hadda garanaynin magacooda ayuu ku soo gaabiyay Dr. Saadiq Eenow. xubnaha ururka al-ahli al-islaam ee loo xulay ciidamada waxaa loo sheegay in ay iyagu yihiin kuwa laga sugayo in ay isbedelka sameeyaan Soomaaliya, awoodda dalkana gacanta ku dhigaan. Axmed Cali Axmed ayaa ka cudur daartay kamid noqoshada xubnaha loo xulayay ciidamada. Xuseen Cali Xaaji ayaa ku amray inuu marka hore fuliyo amarka, waxaana laga dhageystay cudurdaarkiisii uu ku sababeeyay in walaalkiis Maxamed Cali Axmed ka mid yahay dhalinyarada ciidamada loo qoray
sidaasi darteed aanu waalidkiisu ku faraxsanayn. Xuseen Cali Xaaji kolkuu si quman u dhageystay dooda Axmed Cali Axmed waa uu ka aqbalay oo uu ka reebay xubnihii ciidamada loo xulayay ee ururkii Al-Ahli Al-Islaam. 1976 ma ahayn markii ugu horeysay ee xubnaha Al-Ahli Al-Islaam ku biiraan ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya. dhalinyaradii Al-Ahli Al-Islaam ee loo qorsheeyay ciidamada waxaa ka mid ahaa Xasan Mahdi oo galay kulliyadii jaalasiyaad ee Soomaaliya ku taalay, Axmed Xaaji Cabdiraxmaan, Cali Muuse Yuusuf, Cabdicasiis waxaa tababar loogu qaaday Ciraaq, Faarax Dheere iyo Cabdiraxmaan Sheekh Cumar iyagana Suudaan ayaa loo qaaday, Saadiq Eenow iyo Maxamed Cali Axmed Masar ayaa iyagana loo qaaday. ma la oran karayay Al-Ahli Al-Islaam waxay haysay dhabbihii Soomaaliya lagaga curin lahaa dowlad Islaami ah? Dr. Saadiq Eenow ayaa su-aashaasi ka jawaabay. Waxa uu yiri waxaa ciidamadana loogu daray ayaa marka horeba ahayd in aan inqilaab wadanka Soomaaliya ku qabsano oo aanu ridno dowladii Siyaad Barre. Isqarxiya haddii nala yiraahdo waan isqarxin lahayn, sidaan u doonaynay in aan bedelno nidaamkaasi shuuciga ahaa. taasi waxay muujinaysaa in ururada xag jirka ah aysan Soomaaliya ku soo bilaaban 20 sano ee la soo dhaafay ee ka horeeyeen. Al-Ahli Al-Islaam waxay waqtigaasi kacaanka kula tartamaysay nidaam habaysan, waxayna lahaayeen qaab ay kula socdaan xaafadaha Muqdisho ama degmooyinka Muqdisho. Axmed Cali Axmed ayaa ka hadlay sidoo uu qorshahaasi ahaa. Waxa uu yiri waxaan xasuustaa in Al-Ahli Al-Islaam ahaan Muqdisho ay 4 qaybood noogu qaybsaneed, waxaana anigu u xil saaraa qaybta dhexe oo ka koobnayd 4 xaafadood ama 4 degmo. Degmada waa Bari, Xamar Jajab, Xamar Weyne iyo Shangaani. si nidaamsan ayaan xaaladooda dusha ugala socon jiray degmooyinkaasi, waxaana warbixinadooda u gudbin jiray Xuseen Cali Xaaji oo madax inoo ahaa. ururkii Al-Ahli Al-Islaam oo markii dambe isku dhacay ayaana ku guuldareystay in ay talada dalka la wareegaan. daawadaalintaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeena wararka sirdoonka oo aanu ku eegayna qaybtii 8aad ee kobciga Islaamiyiinta Soomaaliya. tan intaan qaybta xigta dib ugu kulmi doono. nabadgelyo.